dhowrkii bilood ugu dambeysay Sweden iyo Soomaaliya ayaa hadalhayn dhexdooda ka jirtay. heshiis la soo ogaaday oo qarsoodi ahaay 2003 ayaa waxay dhalisay horta in la falanqeeyo sidoo kalena warbaahinta Sweden ay si fiican oo qoto dheer ay u gasho ay xataa u baarto lacaga badan oo Sweden ay ku bixisay ka bixisay qasnada cashuurta kaasoo ay siinaysay dad يعني كشقيناي هشيس كان dadka ku tarxiilayso Soomaaliyeed ee u tarxiilayso Soomaaliya heshiiska koodu hor wuxuu ahaay in ay tarxiisho kaliya dadka dhibaatooyin geysta sida kufsiga dhaca dilka laakiin waxay ku dartay dad Soomaaliyeed oo mangalyo doon ahaay shaqaysanay qaarkood isdhaxgal sameynay wax baranay dadkaasi ku dartay maadaama sharciga uu diiday marka taas oo qalad noqotay hatta mucaaradkii maxaafad kulligood way isku raaceen dadka inaan la tarxiilin حتى مامولدي مجالوينكي دتك مامول أي دم ويديدين حد هن دتك هاس أنا أوباحن دتك سنة ترحيشين معهن لكن ترحيله دتك دبعت دتك جيس سويدن مادام سويدن أي عاوز سوماليا غالب ده كو عاوزه وحير تامك سويدن أيضا سوماليا أي عاوزه ودتك دبعت دتك جيس دل كده إن إسكت ترحيشه دبعتوين ديل وكوسبتين سويدن مركا هالشيء كان مركله أي صحيحتي مادام أي جوجين دت بدنا ترحيل ربين مردويد سنتكي لو صار أفرع لبعتني شقف أي ترحيلين أو صومالي ترحيلين سويدن هشيس كان وحربتا دتك إن أي هردك كعان دتك الصوماليات إذا كنول وحين يقفصدان حسبوا عنصرية حتى وحوربا دتك الصوماليات أم قحوتية أودن إنه كقاعد يكرو شرعي وين هدي أو قفصوا وين سدحقل سمين وين دل كان أنت سوسنا يجو جوجو إيش غيسوا وين لكن تاس معارض كأي كديدي صحيح أودن بيو دتك la tarxiilayo waxa leh safaaradda Soomaaliya ee Sweden taasoo fiirinayso dadka la tarxiilayo in ay ku jiraan heshiiska maadaama heshiiska ay tahay dadka dhaca kufsiga dilka waxyaabaha lagu xukumo in ay Sweden iska diri karto Soomaaliya u diri karto u tarxiili karto laakiin si dadka soo haraan haddii ku jiraan oo la tarxiilayo safaaradda ayaa mas'uul ka ah taasna qalad waay xataa heshiisku ma jirto oo lama ogol dadka in la tarxiilo وحدي لو دي شرعي واد قاركود حاجه dadka sharci sugayo oo sharci yaani heestaan yar oo 2 sano 3 sano ama bilooyin sugayaan dadkaas oo kala xataa lama tarxiil karo qofka marka inuu isdhaxgal sameeyo way nolosha oo u imaad meeshan qurbahan u imaaday inuu ka faa'iideysto way hadda waxa jirta xataa ab Soomaaliyeed oo hadlay oo 10 sano joogay 5 caruur kaas oo ay rabaan in ay tarxiilaan maadaama sharciga loo diiday 10 sano joogay sharciina siyaada ahayd حق أهان استحقلوا سمي عرور كودالي وشقيستا هي عرورتي صحبرناي قف كاسو كلا أيال ربع أنا ترحيله قال هذا دعين ضد صوماليات لانيرا صوماليات أيال ترحيله تاسنا ويكجر بين سويدن وقالت أي حد لكن سه مرة بإنه يصدقين أيها هشيس كجرتو ضد صوماليات مركع إني كفر صدام معي وإدهان قف كلامه ترحيل كرو